gudoomiyaha guddi hoosaadka guddida nabadgelyada ee golaha deegaanka Gabiley Cabdicasiis Cabdilaahi Ismaaciil ayaa ka warbixiyay arrimaha amniga ee gobolka Gabiley isagoo oo sheegay inay soo bixeen dhalinyaro burcad oo khatar ku haya haweenka waqtiyada habeenkii isla markaana kula kacaafalan anshaxumo waxaanu xusay in si dhaqso ah wax uga qaban doonaan xildhibaan Cabdicasiis Cabdilaahi waxa kale oo uu sharaxaad ka bixiyay waxyaalaha inta badan ay ka dhacaan falalka amni darro marka la amni waxay gobolka waxay marmar ka timaadaa waqtiyada gudaha hogdaayo in beeraleyda soo dhacdo dadna xagga ay ka timaado amni darradu hawlahan qabanay haddii aan wax kaaga sheego xagga amniga waxaan soo xalinay ilaa 7 arrimood oo ka dhacay deegaankeena horta muxtaar waxaa jira hawlo aan Gabiley lahaan jirin oo hadda ku soo kordhay Gabiley ma lahaan jirin dhalinyar hablaha faraxumaan ku haysa طبعا موبيلada iyo waxa si dhacaya imka bishii u dambeysay haddaan ku iraahdo iyo bishii hore bartankeed waxa soo baxay dhalinyar aad u fara badan oo la timiday waxyaabaha aan hadda inagu cusubaa in hablaha dib loo geysto طبعا موبيladan laga qaato hawshaasi waxaan wax ka qabanay taalifteeda oo ku tala jirnaa muxtaar waxaan ka qabanay insha Allah xildhibaanku waxa kale oo uu sheegay in maayarka magaalada Gabiley ay uga fadhiyaan xisaab xirkii miisaaniyadda sanadkii la soo dhaafay ee 2013 isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri maanta waxaan leenahay ka golahaan fadhi waxaan maanta kula xisaabtamaynaa maayarka iyo fulinteedii in ay haddii ay ku shaqeeyeen miisaaniyadda si loogu talagalay ahsan anaga maayarka saaxiibtinimada ma hadda xoraamadda lagu tafalo صاحبنا وقبض كيو هرمات بشر هذه اللي جوا يوش بدوبيها يجي إنه وحبة قوان أو خمسة ومدة أنا وحبة قوان هذا صاحبنا قوم منه هذه حواليهم مدة صيا أنا الله كانوا شحنا ومرينا وحوي أنا ما قربت تجناني أنا والله شغني sidoo kalena gudoomiyaha guddi hoosaadka dhulka ee golaha deegaanka Gabiley mudane Mahdi Maxamed Xaashi ayaa isaguna ka hadlay arrimaha dhulka oo muddooyinkii u dambeeyay ay dhaliilo ka soo yeedhayeen isagoo oo sheegay in waqtigan aanay jirin wax muran ah oo la xiriira arrimaha dhulka meesha ugu hawsha badan waa meel inta badan xasaasi leh waxa weeyaan meel had iyo jeer ale ishaysigiisa iyo dhibkiisa farabadan tahay wallahi yarta intii aan nimid ishaysiga dhulku waxa moodaa inuu inta badan uu hoos si dhacay taas oo inta badan ku xalino dhexdhexaadin oo inta badan magaranaysa aan ku soo dhaweeyo dadka murankan dhulka ee magaalada Gabiley ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya taasi oo ay keentay in maxkamaddu dib ugu soo celiso ka garnaqsiga dhulka dawladda hoose Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley